gudoomiyaha gobolka Togdheer ee weheliyaan taliyaasha ciidamada booliska qaranka iyo maayirka degmada Burco iyo mas'uuliyiin kale ayaa saaka gaaray degmada Beledhig ee ka tirsan gobolka Togdheer sidoo kalena qaar ka mid ah cutubiyada ciidamada qaranka iyo booliska iyo gaadiidka loo yaqaan tiknikada ayaa iyaguna xalay gaaray degmada Beledhig deegaamo ku yaala xuduudda u dhaxaysa Soomaaliland iyo Itoobiya gaar ahaan kuwa ku aadan dhinaca gobolka Togdheer barasaabka gobolka Togdheer oo khadka telefoonka aanu kula xiriirnay isagoo ku sugan degmada Beledhig maanta ayaa hoonka TV uu sheegay in ujeedada safarkoodu la xiriidho u kuurgelida xaaladda deegaamadaasi xuduudda ku yaal ee ka tirsan gobolka Togdheer oo uu sheegay in maalmihii u dambeeyay ay ka soo gaadhayeen cabashooyin ku saabsan dhinaca ciidamada iyo booliska oo halkaasi ku soo noqnoqonayay waxa gudoomiyaha gobolka Togdheer Masarqaba uu xaqiijiyay in cutubyo ka tirsan ciidamada qaranka kuwa booliska iyo gaadiidka dagaalkuba ay xalay gaadheen qaar ka mid ah degmooyinka xuduudda ku yaal si loo adkeeyo ayuu yiri ammaanka deegaamadaasi waxa kale gudoomiyuhu sheegay in maalmaha soo socda ay ku sugnaan doonaan deegaamada gobolka ee xuduudda ku yaala isla markaana ay kormeer ku mari doonaan iyagoo ku kurgeli doona xaaladda deegaankaasi maalmihii u dambeeyay ayaa ciidamadan loo yaqaan new booliska ee dowladda deegaanka Itoobiya ay ku soo noqnoqonayeen deegaamadaasi sidoo kalena waxa la sheegay in maalintii dooraato ay calanka Soomaaliland ku jeexjeexan ciidamadaasi new boolisku deegaanka Beledhig ee ka tirsan gobolka Togdheer waxay wararku sheegayeen in arrimahan oo dhan ay si weyn uga cadeysiyeen dadweynaha deegaamadaasi arrimahan oo dhan ayaa waxa ay ku soo beegmayaan iyadoo shantii bishan ee toddobaadkii hore ay ciidanka new boolisku ay 25 qof oo rayida ku laayeen tuulada Jaamac Dubad ee ka tirsan deegaanka Gaashaamo Kays Axmed Digaale Hon Cable TV Burco.